لله رب العالمين أما بعد runtii waxaad dareemi kartaan dadka hoolkan fadhiya ee buuxa shucuurta ay muujiyeen baad garan kartaa waxa weeye waa shucuur muujinaysa fariinna ah marka hore waxay muujinaysaa midnimada reer Jubbaland inay ku midaysan yihiin Jubbalandnimadooda dastuurkooda madaxweynaheeda iyo xiriirka ay la leeyihiin dawladda federaalka waxaan dareemayaa haddaan heesa ahay waxaan qaadi lahaa ishii bugtay ku bikacso laakiin codna melihi laakiin intaas ay kaga filan runtii doorashadani caalamku waa u jeedaa oo de waxay ahayd live waxaan hambalyaynayaa madaxweynaha la doortay 5 sannadood ee soo socota saddex shay baan ugu hambalyaynayaa marka ugu horeysa in la doortay waa ugu hambalyaynayaa hambalyaan ku leeyahay madaxweyne ducadana waa raacsanayaa ilaahay ha kuu fududeeyo ilaahayna ha ku xafido mar labaadkana waxaan kuugu hambalyaynayaa go'aankii geesinimada lahaa ee runtii anigu aan idhaahdo ama u bixiyey badbaado qaran madaxweyne axmed maxamed islaam oo loo garan og yahay markii hore axmed madoobe ayaamahan dambana axmed nuur loogu beddelay aad moodo waxaan leeyahay ku dhiirashadii uu ku dhiiraday inuu qabto doorashada wuu ku mahadsan yahay sababtuna waxay ahayd miduu ku ilaalinayo dastuurka Jubbaland iyo ka federaalka labadaba miduu ku ilaalinayo midnimada iyo rabitaanka dadkana way ahayd miduu ku tusayo in dastuurka Jubbaland iyo dastuurka federaalku ay kala horeeyaan oo weelgumbu ka unkamaaya halkan dastuurkeeda haddii aanu axmed maxamed islaam ilaalinin oo xafidinin way adkaan doontaa inuu ilaaliyo dastuurka dawladda federaalka marka waxaan leeyahay madaxweyne hambalyo waxaan u hambalyaynayaa guddoonka baarlamaanka guud ahaan iyo xildhibaanada sharafta leh ee maanta yacni doorashadan aqlabiyadda leh ku doortay madaxweynahoodii taasoo tusaysa sida ay ugu kalsoon yihiin marka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dadka kale ee ka soo qayb galay aynoo inay kulushahay oo meel kulul aynu ku jirro nalkii damay aawadii aad iyo aad baan idinku hambalyaynayaa idinkana mahad celinayaa laba shay uun baan ku soo gabagabaynayaa waa maamul goboleedada kale ee la mid ah Jubbaland ee aan ogahay xilligoodii doorasho inuu xilligii mandate-kii la siiyey inuu dhacay madaxweyne kasta oo kuwa ka mid ah waxaan leeyahay ilaahay baa wax idiin haya ilaahayna barya kuna dhiirada inaad doorashooyinkiinu qabsataan runtii sababta waaba lay kor taagan yahay halka ugu dambaysaan odhanayaa waxa weeye madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa madaxweynihii dawladda federaalka laakiin ma aha dastuurkii dalka labada haddii aynaan kala garan ama kala garanaynba mushkiladda ina haysatay ummadda Soomaaliyeed weeyaan xasan sheekh maxamuud madaxweynuhu isna wax kuma darsan karo xilligii la doortay ciduu u kordhin karaana ma jiro ninkii aqbalay ama u rixiyey in xasan sheekh maxamuud wax u kordhin karo waxaan malaynayaa de waa niman yani ma maagaya laakiin muu garan siyaasaddu waxay tahay iyo constitution marka waxaan leeyahay min fadlakum sidaa oo axmed maxamed islaam u dhiiraday ku dhiirada isla markaana aan kala garanno madaxweynaha dalka iyo dastuurkii dalka aad iyo aadna waa idiin salaamaya wabilaahi tawfiiq